السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سودو عريف ديجيتال maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo video yar ah ku saabsan sidee Facebook ads anoo isticmaalaya lacag 5 dolar ku sameeyay anoo wax product haysan anoo haysanin maxaa la dhahaa wax alaab ah marka case-kan aan idin sheegayo waa case xaqiiqi ah sidoo kale waxaan rabaa inaan idin tuso sida adina Facebook u shaqaysan kartid adoo page iyo Instagram isticmaalaya okay marka case study-gan wuxuu ahaa case oo ardayda course-ka 5 days program oo Facebook iyo Instagram aad qaadanayso u sameeyay waxaan isdhahay asxaabta kale ee YouTube-ka ku xiran haddii aad la wadaagtid maybe wax badan ay ka faa'iidayaan case-kan study-gan wuxuu ku saabsan yahay ka shaqsi ahaan maxamed ahaan sida ani u sameeyay lacag 500 dolar gaarayso anoo isticmaalayo Facebook iyo Instagram ad rabay inaan sameeyo adkan waxaa ugu talagalay inaan test gareeyo haddii products oo celis ah Facebook lagu xayeysiiyo lacag ma laga samayn karaa marka waxaa tijaabinaya alaab oo qofkii soo diray oo isnaqaano saaxiib ahayn iska wanaagsaneen ugu dhahay alaab noocaas meel ku ogahay lacagtaasaan lagu rabaa waxaan dhahay wait alaabtan oo sawiro nooga soo qaad alaabtii sawiro ka soo qaadnay page yar aan sameynay sababta waxay ahayd alaabtaas oo alaab maasha Allah fiican ay ahayd ninka wuxuu ku rabay qiimo ah 2,000 dolar marka waxaan dhahay wait just chance I see 1 day ama 2 day marka page-ga diyaariyay xogtii isku aadiyay alaabtii waxa uu sameeyay aad xayeysiin u sameeyay xayeysiinta ujeedin waa matana waxay ahayd 1st September marka kiiskan aan sameynay marka waxaa abuuray page-ka abuuritaankiisa waxay ahayd inaad test ku sameeyo ama aad tijaabiyo alaabtan ma iibsamaysaa mise ma iibsamayso marka markii aan tijaabadii sameeyay oo xayeysiintii aan kiciyay productigii ee alaabtii page-ka aan soo geliyay oo looga u sameeyay xaqiiqdii meesha waxaa ka soo baxay wax incredible ah oo aad ula yaabaysid waxaa aad i cajab geliyay alaabtii markaan geliyay waxay soo xiriirtay ilaa iyo 50 qofood oo alaabtii doonaysa finally alaabtii waxaa nasiib u yeeshay qof jooga baydhabo inuu naga iibsado waxaa isticmaalnay waxay ahayd adka isticmaalayna waxaa la dhahay waa nooc ka mid ah adska oo la dhahayo reach ardayda hadda course qaata aad ay u yaqaanaan oo ku practice gareeyaan marka sidoo kale waxaa jiro some business ideas oo aad bilaabi kartid haddii aad tahay ama aad rabtid in dhankan digital marketing-ka iyo waxyaabahaas aad horumar ka samaysid waxaa bilaabi kartaa waxa la dhahayo online store for second hand products products ku heli kartaa xayeysiin inaad kicisid ama dadka asxaabta weydiisid iyo alaab iibinayo ama suuqyada alaabta celiska lagu iibiyo inaad tagtid alaabo qiimo jaban aad soo qaadid ama alaabta inaad sawirka soo qaadid oo page-ka aad ku xayeysiisid iibkii kadib network-taas u samaysid ama products in Alibaba ka raadsan sidoo kale waxaa jiro online courses-ka waa growing industry waaye haddii aadan ahayn qof dad wax bari karo in dadka dad wax bara dhiil laga shid aad ka duubtid aad sii iibisid digital marketing aa jiro waxyaabahan marka waxay u baahan yihiin skill ah digital marketing skills marka waxaa jira hadda course anaga aan bixinayno waa kana course-kan waxaa la dhahaa 5 days Instagram Facebook and ad workshop course-kan waxaa lagu bartaa qaababka samayn kartid Facebook ads waxyaabahaas dhan tusaale number 2 waxaa barnay mindset-ka waxaa jiro simple maths oo qof walba hadduu fahmo shaqada aad iska dhaafi kartid oo hal abuur aad ku noqon kartid waxyaabahan aad baranaysaa 5 maalmood waaye 5 maalmood qofka wuxuu noqon doonaa qof expert ku ah xayeysiimaha dhanka digital marketing-ka especially qaybtan la dhahayo SME ama social media marketing marka haddii aad danaynayso programkan YouTube-kaaga qaybta hoose ee description-ka nagala soo hadal kugu soo dhaweynaya. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.